waxaan halkan ka cadaynayaa runtii inaan jaadku cidna u xidhnayn nuxurka saxaafadan aan maanta ugu yeedhay waa intaa weey jaadka cidna uma xidhna jaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha faraha badan leh dadka Soomaaliyeed quutaan anu quudkuma sheegay qaade ay quutaan ay damcaan inay dibadda ka soo dhoofiyaan bariis baan soo dhoofsanaa galey waxaan soo dhoofsanaa baasto digaagadan soo dhoofsanaa hadhow waxa ku xigi doona muus iyo hilib adhiin la inoo keeno wixii aan cunayno oo dhan waxaan nahay dad damcay in dibadda looga keeno yaa anigu ma oran kara maanta bariisku hebel buu xidhan yahay baastada hilib kale u xidhan tahay kaasina kaas u xidhan yahay ma oran karno jaadkuna waa saas oo kale waxa qofka Soomaaliyeed ee doonaya inuu ka ganacsado sida ganacsiyada kalaba ka ganacsada jaadka waxa looga baahan yahay inuu sharcigeeda soo maray kaliya macnaheeduna yahay hadaa doonaysa inaad qaadka ama jaadka nabas loo yaqaan ka ganacsato laysan baad soo ruqsadaad soo qaadani wasaaradda ganacsiga ku shaqada leh baad u tagi ayaga nidaamka ku akhriyo doona waad soo qaadan dabeetana jaadkeen arinta kale ee mas'uulka taana waxa weeye in aadan soo qarin jaad baasita tiraado diyaaradu jaad baasita tiraado cid waliba ogaato jaad dhinasido jaadkaasi marka cashuurtiisa iyo arrimihiisa ugu tala gasho si hufan oo hagaagsan halka u soo mariso customka keento lagu cashuur intaas uma laga raba license soo qaado qaadkana laga cashuur sida waxyaalaha kala wadaan cashuurana wax inta dhaafsan oo muwaadin Soomaaliyeed laga doonayaa ma jirto adigu marka ama diyaarad soo saar ama dameer soo saar ama awrka ku soo qaad ama la soo lugay mid aad doonto sameeyo jaadku waa furan yahay meesha doonto ka soo qaad waxaana loo baahan yahay marka nidaam baa leedinka baahaya jaadka dadka ka baaya mushtarow sida arrimaha kaleba waxa idin fiican inay ishabaysaan oo idinku isagaajisaan kol hadaad wada kale wax ka soo iibinaysaan waxa idin fiicnaan lahayd taasina waa arrin idinka idin taalweey waxa idin fiicnaan lahayd in cidii doonaysa inay meesha tagto ay ishabeeyaan isagaajiyaan oo iyaga oo wada socda ay meesha wax ka soo iibsadaan yaa ayaa sicirkiina arrimihiina negotiation-kiina waa dhib yaranaya laakiin hadii jaantaa furan ay noqoto jaantaa rogan yaa midana oo idinka idin taalweey anagu wadaan caawin karana waa idin caawinayna hadii jaantaa rogan noqoto qodadoo dhan xagga tagaan qolada xagga joogta marka iyaga noqonaya price makers waxa la yiraahdo iyaga oranaya price-kayga waa inta dabeetana waa idin u kala badino price-ka cirka jooga ayaa nin wax soo qaado wada khasaari doonta kulli haday dibadda ka soo iibsanay in nidaam lagu socdo ayuubana uu idin la talina waa shaqtaalo laakiin baa mushtarigu kama xaransana inay waxay doonayaan ka ganacsadaan maadaama aslonga waxaas ay yihiin wax xalaal ku soo galay xalaal ku socda sharci lagu soo iibsaday sharci lagu soo cashuuray ya intaas aan doonayaa maanta inaan idin sheego cidii doonaysa inay tafaasiil u baahan ama cabasho haysa wasaaradda maaliyadda ee Shangaani way iman karaan ya halkan committee baa ka samaysan guddi baa ka samaysan guddi khilaafaad wixii ah ee sharci ah xalilaysa ya cidna cid lagu qasbi maayo laakiin inta aan ku soo sheegay hadii cid ku diidaysa jirto inta aan soo sheegay cid diidaysa hadii jirto waa ku soo dhaweynayna halkan kaalay ama wasaaradda gaadiidka u tag iyo diyaaradaha wasiir Omar labada iyo diyaar baanu nahay inaan wixii anaga naga khuseeya inaan kula xaliilo muwaadin Soomaaliyeed